Ameerika Sacuudiga ee qaniga ah, lacagtiisu waxay gaaraysaa balaayiin. Waxa uu xidhan jiray dahabka ugu qaalisan adduunka. Waxa uu wadan jiray kaarar uu ku tilmaamayo inuu yahay boqor Sacuudiyaan ah. Waxa uu ku nool yahay guri qaali ah oo ku yaalla jasiiradda Fashar, meel u dhow xeebta Miami ee dalka Ameerika. Waxa uu wadaa Ferrari oo wata taariko diblomatig ah. Inta badan waa uu socdaa oo waqtigiisa waxa uu ku qaataa safarro, isagoo wata helikobtarkiisa si uu ganacsigiisa meel walba ugu tago. Dacwad dheer kadib waa la aqoonsaday, waana la xukumay xukun gaaraya 18 sano. Ninkaanu ka hadlayno waa Ameerika Sacuudiga ee been abuurka ah. Waa Anthony Gignac, magaca uu sheegtana waa Amir Suldaan bin Khalid Al Sacuud. Mararka qaar waxaa loogu yeeraa Amir Khalid bin Cabdullaahi. Gignac waxa uu ku dhashay Colombia, koonfurta Ameerika, waxaana qoys Maraykan ah uu ku korsaday meeshaan markii uu jiray 7 sano. Isaga oo 17 jir ah, waxa uu bilaabay inuu iska dhigo amiir Sacuudi ah, isagoo isticmaalaya aqoonsigiisa been abuurka ah si uu u helo kaararka deynta iyo inuu khiyaameeyo shaqaalaha dukaamada iyo maalgashadayaasha. Marka la eego mudnaanta dacwadda, waxaa la xiray 11 jeer 30 sano ee lasoo dhaafay si uu u sameeyo howlo la xiriira shakhsiyadda amiirka. Xafiiska Xeeralyaha Guud ee Florida ayaa sheegay in Gignac uu bilaabay adeegsiga magaca Suldaan bin Khalid Al Sacuud horaantii bishii May 2015 si uu isu ekaysiintiisa u wanaajiyo. Waxa uu iibsaday taariko diblomaasiyadeed oo been abuur ah, waxaana warqado aqoonsi been abuur ah u diray xubno ka mid ahaa dadkii la socday iyo ilaaladiisa. Waxa uu ka labisnaa dharka hidaha iyo dhaqanka Carabta, waxa uuna xidhnaa dahab iyo saacado qaali ah. Waxa uu aad ugu safri jiray diyaarado gaar ah iyo doonyo qaali ah, wuxuuna sidoo kale iibsaday farshaxan qaali ah. Gignac ayaa ku soo duubay xogta noloshiisa beenta ah bartiisa Instagram-ka, halkaas oo soo dhigay sawirrada eeygiisa oo ku dhex fadhiya boorsooyin qaali ah iyo sawirro xubno ka tirsan qoyska maamula Sacuudiga oo wata weedho ay ka mid yihiin "Kani waa aabbahay."